بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومع العبقري iyo channelkii macalabqari youtube channel isku soo noqod wanaagsan aad baan idin salaamayaa dhammaan bulshada ardaweynta soomaaliyeed ee dunida dacaladeeda kala duwan kala joogta ee ku taxan channelkan iyo bulshada soomaaliyeed ee si guud uga faa'iideysta waxaan leeyahay waqtigii iyo ayuu idin wacnaadeen intaa kadib maantay waxaan wadnaa casharkii labaad aid part of speech wax loo yaqaano ayaan insha allah qaadan doonaa horey casharkii koowaad umaan soo qaadanay maanta waa casharkeenii labaad casharkeena labaad waxaan uga hadli doonaa 8 qaybood iyo definitionskooda insha allah soo dhawaada halkan waxaa inoo yaala oo aan rabnaa insha allah inaan concept guud ka qaadano horena waan usoo aragnay aid part of speech-ka casharkeena koowaad balse inta casharka iyo duruusa aanan u galin fadlan bulshada ardada soomaaliyeed dunida dacaladeeda inagala socota nagu taxan waxaan ku dhiirigelinaynaa insha allah si iyaguna noogu dhiirigeliyaan si annaguna ugu dhiirigelinay annagana maaragta insha allah noogu dhiirigelin ay noogu noqoto laagti sheerta insha allah inta inagu taxan si bulshada aan inagu taxnayn insha allah u gaarto fariinteena waana ku mahadsantihiin waan idinkaga mahad celinayna insha allah casharka maantay waxaan noo socday aid part speech casharkii labaad waaye marka insha allah la socosho wanaagsan awalan marka laga hadlayo laba magac ayaan hore usoo sheegay magac waxaa la yidhaahdaa magac caadiga ah oo commonka ah oo aad loogu badan yahay oo la wada yaqaano waaye waa midkaas la yidhaahdo aid part of speech laakiin maantay horey casharkeeni horena waa kusoo xusnay haddana waa ku xusayaa waxaa kaloo loo yaqaanaa word classesna waa la yidhaahdaa aid part of speechna waa la yidhaahdaa marka laakiin midda loo badan yahay buugta ay qoraan aid part of speech waaye laakiin word class waa la mid eragan word classkiisa sheega dad maqasho waa aid part of speech wuxuu ka yahay ka sheeg haddaba marka kasoo tagno labadaas magac midkii doonta qaado laakiin midka loo badan yahay kaas waaye buugta badan aad ku arkayso haddaad aragta kana ayuusan wax kala noqone aid part of speech oo la mid yahay word classes hore waxaan usoo sheegnay in aid part speech-ka ama word class da ama aid part speech da inaan laba u qaybinay qolo loo yaqaano open word classes iyo closed word classes ardayga casharkii hore aan soo la soconin aan soo akhrisanin ama soo daalacanin xoogaa way ku yara adkaanaysaa open word classes iyo closed word classes iyo halka aan joogno laftigeeda fadlan casharkii hore soo dhegeyso soo akhriso markaa kadib kan usoo gudub insha allah open word classes haddaan wax yar dulmar ku sameeyo labaan u qaybinay aid part speech-ka 8 qaybood 4 iyo 4 aan u qaybinay afarta ugu horeysa waxaa la yidhahdaa open word classes sida ereyga ka muuqata open macnaha ereyada englishka boqolkiiba 99 ereyada cusub ee markasta kugu cusbaanaya waxay u badanayaan afartaasay noqonayaan si kasta oo afartaas aad u barato mar walba ereyo cusba ka imaanaya waa afartaas maxay kala yihiin waa nounka oo magacii ah waliba magaca horaan usoo sharxo casharkii hore si fiican maarata ugu laabamaaye aan ku sheegay boqolkiiba 50 luuqadda inuu ka yahay magaco marka luuqadda boqolkiiba 100 laba loo qaybsho 50 waa magaca verbka waxaan siinay boqolkiiba 7 percentage-ka adjective-kan waxaan siinay boqolkiiba 25 saas oo ahaa afartaas marka markasta ereyo kasoo cusubay ka imaanayaan laakiin afartan open meesha ka ahayd kuwa hore kan waxaa la yidhaha closed word classes maxaa lagala jeedaa macnaha closed word class waxaa lagala jeedaa ustaad marka aad barato afartan weliba aad waqti badan geliso ama macalin u hesho ama macalinta u hesho aad sii siyaasato
afartaas hal eray oo cusub kaaga imaan maayo. micnuhu pronoun iyo preposition iyo conjunction iyo interjection saa iska dhaaf asaga waaba kan ugu yarba waxba ma doonaya kaasi. laakiin pronounkii preposition conjunction kan ka hadlaya kan waa iska raaciya mooyaane afartu raacayaaye isaga wax weyn maahanba. afartaas marka pronounka iyo prepositionka iyo conjunctionka iyo interjectionka haddaad barato erey dambe cusub kaaga imaamo wax la baran karo la dhammayn karo kooban waaye. laakiin intaad ka baranayso oo aad soo koobaysaa ayay kaaga xiran tahay in erey cusub kaaga yimaado. laakiin afartaas erey kastoo ku cusub ku yimaada ama erey kastoo cusub aad aragta ama waa magac weliba majority-gu magac waa ereyada badankooda cusub. ficila ku xiga adjective-ka ku xiga marka laga hadlo sababtoo 20 isaga ah kaasna 50 wato 25 labada bisa qaadanaya boqolkiiba. marka afartaas koro micnaheedu waxa waaye erey kastoo si kastaad u barato erey kastoo cusub ayuu ka imaanaya. laakiin sharci ahaantooda markaa barato erey kastoo cusub iyagaaba u badanba. laakiin afartan pronounka iyo preposition conjunction iyo interjection haddaad barato wax kuu dhiman ma laha. haddaad barato erey kale cusub kaaga imaan maayo. okay aan define garayno ereyga ugu horeeya waa noun. nounkan waxaan sheegnay inuu yahay maxaa la dhahay boqolkiiba 50. waa maxay magac marka? magac is a word waa erey that names a person, place, thing, animal or idea. waa magac kasta dunida waxa saaran shay dunida saaran oon magac lahayn ma jiro. nothing has a name. waxaan magac lahayn ma jiraan. everything has a name. marka magac shakhsi ha noqdo, magac goob ha noqdo, magac shay ha noqdo, magac xayawaan ha noqdo, magac fikradeed ha noqdo. mar kasta shay kasta ama goob walba ama xayawaan kasta ama fikrad kasta wax walba waxay leedahay magacay leeyihiin. marka shay aan magac lahayn marka naming word waa si kala daan yiraahdo waa erey magac lagu magacaabo is a word that names ama naming word waa person waa shakhsi, place na waa goob, thing na waa shay, animal na waa xayawaan, idea na waa fikrad. okay noun waa kasa marka waa magaca shay kasta, xayawaan kasta, qof kasta, idea kasta. verb marka ficil loo yimaado ama falka is a word waa erey that indicates wuxuu tilmaamaa ama muujiyaa indicates action fal ayuu muujiyaa or state of being xaalad ahaansho in a sentence. jumlada falka walow mararka qaar auxiliary verb uu noqdo laakiin gudahan ku arki doonaa laakiin hadda labadan ka soo qaadanayna. verbku wuxuu tilmaamaa ama fal faleed uu tilmaamaa ama fal ahaansho tilmaamaa. marka verb laga hadlayo noocyo loo kala qaadaa jira verbka sida guud. verb marka la kala qaadayo waxaa loo kala qaybiyaa finite verb iyo non-finite verb. finite verbka waa verbka casharada gadaalaan ku arki doonaa haddaad danaynaysaana koorso dhammaystiran oo from A ilaa Z oo grammar oo lagula xisaabtamayo la isku dabagelayo oo xisaabtan dhaba leh oo muddadeedu aysan aad u badnayn qarashkeeda ama fiigeeduna aysan aad u badnayn idin helaynaa. waxaadna ka helaysaa Cabqari Online Academy. soo dhawaada dad magaalada Muqdisho ku nooshahayna offline iyo online labada wada helaysaa. days la imaanaya daysna online lagu qaadanaya. haddaad ka baxsan tahay magaaladana dabcan online ka kugu siinaynaa laakiin luqadda baahideeda sharci hadduu ku hayo oo baahi sharci qabta meel ka fuulay insha Allah. marka action verbka iyo state of being ayuu noqonayaa oo verbka wuxuu tilmaamaa muujiya falfaleed iyo fal ahaansho. waan ku dheeraanayo shaqo badan waa hadda dhex galo. marka adjective-ka ku xiga waa sifo is a word waa erey la sifado that modifies wax ka sheegta noun or pronoun. isagu labada unbuu wax ka sheegaa. sifo sideedaba waxay wax ka sheegtaa noun oo magaca and pronoun that stands for a noun. intaa dambe waa ku daray waxaan ugu daray waxay tahay magac iyo magacyaal wax ka sheega. haddaan ku idhaahdo xoogahay magacyaalka wuxuu noqonayaa mid gooni u taagan laakiin gooni ma taagno magac iyo magacyaal that stands for a noun u taagan magac waay. haddaan ku idhaahdo Ali is fine Ali waa fiican yahay. he is at the school ku jira. haddaan ku idhaahdo heedii u taagan tahay markii hore waxaan ku hormaray Ali. haddaan Ali ku hormari lahayn ma aadan fahmi lahayn heed cidday u taagan tahay.
waxaa jira waxa la yidhahdo repetition of waxaan ka wadaa repetition of noun ay idhaahdo sax waaye magac la soo celceliyo ayaa la diidaya magaca mar haddii la isticmaalo mar labaad mar saddexaad mar afaraad mar boqolaad pronoun loo qaadanaya waxaa kaloo lamid a magacuyaal aan magac ka horeynin lama adeegsan karo haddaan ku yidhahdo she is crazy way waalan tahay yaa waalan shiidaas waa inaad taqaanaa cidda waa in warkaygaas shii aan ka bilaabo in war ka horeeya waa inaad heblaaya moogtahay she smart way waalan tahay marka magacuyaal aan magac ka horeynin lama adeegsado magac mar la adeegsadee lama soo celceliyo okay marka asagu adjectiveku marka labadaas ismatalaysa ayuu wax ka sheegay adjective is a word that modifies that describes ay la mid tahay wax ka sheega noun or pronoun modifies ereyga xiga adverb waa falkaab ereygani waa falkaab adverbku cidda ugu badan uu la shaqeeyo waxna ka sheego waa ficil laakiin laba kala jirto wax ka sheego laakiin cidda ugu badan 70% waa verb adverb is a word waa erey which kaasoo modifies wax ka sheega a verb wax ka sheega waana cidda ugu badan adjectiveka laftigiisa waxbuu ka sheegaa hadda nounka iyo pronounka wax ka sheegaya laakiin isaga adverb ahaan noun iyo pronoun wax uguma sheego laakiin adjective oo wax ka sheega ayuu wax ka sii sheegaa sidoo kale asagana waxbuu iska sheegaa another adverb adverb kalena waxbuu ka sheegaa macno maxaa isagana waxbuu iska sheegaa halkaad nagala socotaan waa Macalin Cabdiqari YouTube channel fadlan waxaan idinka codsanaynaa inaad nagu dhiirigelisaan like-ta iyo share-ta iyo subscribe-ta weliba meelaha is leedihiin waa aadaad maaragtay uga liidataan laftigood soo commenti garayn kartaan si lamida waxaan idin helaynaa Cabdiqari online academy ka socda duruusi kala duwaneed ee luqadda Englishka koorsadan laftigeeda grammarka hadda casharka labaadan ka sharaxayo waad helaysaan iyadoo dhammaystiran furmay ilaa z ah laisla xisaabtamayo aadan umaysantii soo dhawaada adverbku wuxuu wax ka sheegaa layidhi verb waxbuu ka sheegaa adjective waxbuu ka sheegaa isagana waxbuu iska sheegaa shaqaysu waa intaas laakiin noun iyo pronoun waxba kama sheego adjectiveku adverbku noun iyo pronoun waxba kama sheego laakiin adjective wax ka sheego wax ka sii sheegaa inta haddaan uga gudbo pronounka u imaanaysa pronoun waa maxay pronounka inta badan ardada marka sida loo baray inay tahay iyo waxaan kala garan waaye inta badan markii pronoun la isweydiiyo ama pronoun la isku soo hadal qaado ardayga waxaa maskaxdiisa kusoo dhacaya amaba hore uu jawaabta ka bixinaya ay noqonaysaa she he iduu leeyahay she he it iyo they iyo we iyo you iyo me iyo we iyo us waa sax waa pronouns waa saxan tahay laakiin su-aasha waxay tahay mid kamida unbaad u taqaanaa pronoun dhan magaciisa qaatay marka haddaba pronounku waa noocyo kala duwan ayuu leeyahay sida nounka iyo uu leeyahay adjectiveka iyo adverbku laftigooda ma soo dhexgelin adverb of time aa jira place aa jira frequency aa jira manner aa jira duration aa jira interrogative adverb aa jira adverb relative adverb aa jira adverbyo fara badan aa jira adjectivena sidoo kaleba time adverb of time aa jira place aa jira adverbka adjectiveka sidoo kale color size waa adjectiveka noun waa kala duwan yahay common iyo proper waa kala qaybsama maana dhexgelin sababta waqti badan inuu qaadanaysa pronoun marka kindnesskiisu ilaa 10 iyo way noqonayaan ku dhawaad waxaa jira demonstrate personal pronoun oo midka loo badanya marba carabka soo qabanaya ah oo she he we you they personal pronoun demonstrative pronoun reflexive pronoun emphatic pronoun interrogative pronoun indefinite pronoun reciprocal pronoun relative pronoun distributive pronounku wuu tiro badan yahay waana kala duwan yahay laakiin inta badan carabka hal mid oo kamid a unbaa la sheegaa marka wax badan oo kale oo luqadda oo ay ku dhex jirto taqaano sharciyada waxaa jira pronoun haddana aadan garanayn oo isticmaalaysa maalin walba marka insha Allah waad ka faa'iidi doontaan in la socosho wanaagsan pronoun marka waxaa la is a word which takes the place of a noun shaqadiisu waa maxay wax kala ma qabanayo marka booska nounku galaya waan aniga dadin dhahay magacuyaal lama adeegsado oo aan magac ka horeynin sidoo kalena magac la isticmaalay lama soo celceliyo meesha waxa la diidayaa repetition of noun waa la diidayaa no pronoun aan u taagnayn magac uusan ka horeynin lama adeegsan karo intaa kadib
Preposition waa meeleeye. Preposition is a word waa eray or group of words ama waa eray ama waa koox eraya that shows muujinaya marka. Preposition wuxuu muujiyaa relationship between noun or pronoun. Relationship noun, pronoun or noun phrase. Haddaba wuxuu muujiyaa xiriir ka dhexeeya magaca, magacuyaalka iyo noun phrase. Noun phrase waa arki doonaa. Phraseyadu waa tiro badan yihiin. Adverb phrase, adjective phrase, noun phrase, prepositional phrase. waxyaaba badan ay jira phrase marka laga hadlayo. Waa waana marka ardaygu inuu jumlado dhisto oo wax curiyo oo composition sameeyo meelaha ardaydu inay wax curiyaan oo wax qoraan carqabadaha kuwa ay ka mid tahay. ilaa ardaygu maba yaqaanba jumladihii simple sentence jira, compound sentence jira, complex sentence jira, compound complex jira. marka ma yaqaanaba qaabka loo abuurayo waxyaaba ay ka abuurmayaan phraseyada ka mid ah, clauseska ka mid ah waxyaabaha marka la abuurayo independent clause, dependent clause, subordinate clause, main clause. waxyaaba badan oo waxa jira marka qofka luqadda dhismaheeda xataa carqabad uga ah oo saadana garanaya ardayga. marka qaybtan adjective waa preposition waa fanayraada, conjunction aan hadda joognaa. Conjunction is a joining word. Conjunction oo maxaad ahayd? waa joining word asa wax kala ma qabanayo. waxaa loo qaybshaa ilaa 3: coordinating conjunction iyo correlative conjunction iyo subordinate conjunction isla. lafteena jumlooyin isku xirto hadda marka jumlooyinka laga hadlayo oo simple sentence laga hadlayo, compound sentence laga hadlayo, compound complex laga hadlayo, waa inaad taqaanaa yaa wax isku xira. jumlo inaad isku xirto arda laba jumlo inaad isku xirto. laba jumlo simple ah marka la isku xiray waxay noqonayaan compound sentence noqonayaan. laakiin complex sentence maxaa laga abuuraa? jumlo istaagi karta iyo jumlo aan istaagi karin ay ka samaysantaa marba complex sentence. compound complex sentence waxay ka samaysantaa laba jumlo oo main clause oo istaagi karta iyo hal jumlo aan istaagi karin oo independent clause ama loo yaqaano subordinate clause kadii kale. waxa ku dheeraanin waxaa la yidhaahdaa joining word waa eray wax xiriiriya. that joins isku xiraa la yidhi words erayada, phrases phraseyada, sentence jumlooyinka and clauseska marka waa joining word. waan sheego waa 3: coordinating conjunction, correlative conjunction and subordinate conjunction as well. Interjectionka waa kan ugu yaro. is a word waa eray used to express loo isticmaalo in lagu muujiyo sudden emotion, dareen degdeg ah, sajaasada mid caro, mid murugo naxdin, mid murugo, mid naxdin, mid murugo iyo mid farxadeedba. exclamatory mark la isticmaala, calaamatul cajiiba la isticmaala. marka waa kan ugu yarba 8 qaybood. haddaba waxaan maleynaa inaan fahnay. halkaan nagala socotaan waa Macalin Cabqari YouTube channel. soo dhawaada. meesha waxaa igu yaala 3 qaybood oo circle igu jirta. sababtan u saarta halkaa waxay tahay luqadda marka la baranayo luqadda barashadeeda laga rabo sidoo 3dan tiir ayaa luqadda muhiim u ah. mid afraad ma jiro haddii raasana soo helamaysid. haddaad luqadda rabto inaad meel saartana luqadda sideedaba 3dan ka kooban tahay. 3du maxay yihiin? kow waa words oo ah vocabulary. qofku ka vocabulary badan yahay luqadda waa aqoon badan yahay. waxa la dhameeyo ee laga qaatay shahaadada ee dhamaada ee waqti la baran kara leh ee taamahan u dhamaanaya waa sharciga. waxa laga siman yahay haddii aad sharciga aadan aqoonin oo aadan baranin oo problem adiga dhibaato adiga aad jeeba ku wadato waaye iyo culays mar walba ku haysta. laakiin marka qofka wax laga siman yahay la barto waa sharciga. laakiin waxaan laga sinayn oo lagu kala haro lagu kala tagana waxa waaye waa laba shay. waa dhawaaqa erayada iyo erayadii. qofku ka eray badan yahay iyo ka saxid badan yahay pronunciation sounds maxay noqonaysaa? waa erayada dhawaaqooda waa pronunciationkii. marka grammarka marka haddaad erayo hesho erayadii 8dan qaybood mid noqonaya. ama she haddaad tiraahdo waa pronoun, haddaad cali tiraahdo waa noun, haddaad yesterday tiraahdo waa adverb, haddaad today tiraahdo waa adverb. erayga marka erayadu marka sideeda luqad 3 ka kooban tahay. waa sharci ina erayga word arrangement yaa la yiraahdaa. habaynta erayada si loo habeeyo waa grammarkii waaye. iyo ina eraya badan taqaano iyo ina dhawaaqay jumladihii erayadii ku dhawaaq karto pronunciationka 3 ka kooban tahay. marka soo dhawaada waa mar kale iyo Macalin Cabqari YouTube channel. aniguna waa Macalin Cabqari Cabdinuur Maxamed Samatar. aad baan idinkaga mahad celinayaa
ku tixnaanta ku tixan tihiin janalkan cid kasta oo danaynaysana insha allah si cashiro joogta u hesho joogtan cashirada insha allah soo geli doonaa ma maraan iska mashquul oo jirta insha allah hadda kadib insha allah waan dadaali doonaa aad baan idin salaamayaa subscribe-ta like-ta insha allah share-ta waa dhankiina soo dhawaada asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu